It's a pleasure for all of us to come here and do the opening for the Somaliland Liaison Office here in Nairobi. Thank you. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyo safiirka Somaliland iyo ku-xigeenkiisa ayaa si rasmi ah xariga uga jaray safaaradda Somaliland ee dalka Kenya oo la balaadhiyay munaasabaddan xarig jarka oo ka dhacday xarunta safaaradda waxa ka qayb galay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradaha fadhigoodu yahay Nairobi iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya iyo mas'uuliyiin kale waxarintii ugu weyneed ee Somaliland ay ka furato dibadda waxaan wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo ka hadlay ahmiyadda uu xafiiskan u leeyahay Somaliland waa xafiis imika buuxin kara baahidii aynu qabnay oo dhan xafiiskan wuxuu adeegi doonaa dadka reer Somaliland iyo dadka reer Kenya waana xafiis runtii aad iyo aad loogu baahnaa ganacsatada haday tahay ardayda haday tahay dadka safarada kala weemanaya dadka weemanaya maxay raadayeen tababarada hay'adahan ka shaqeeya Somaliland iyo halkan degan intaba wuu shaqeyn doonaa insha Allah wuxuu noqon doonaa kii kobciya xiriirka ganacsi iyo xiriirka waxaan raadayeen dadkeena ka dhaxay xiriirka siyaasadeed ka dhaxay labada wadan ee walaalaha ee Kenya iyo Somaliland safiirka Somaliland ee dalka Kenya Baashi Cawil Xaaji Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada ka dambaysa in xafiiskan uu noqdo kan ugu weyn ee Somaliland ay ka furato meel ka baxsan Somaliland وسؤال في عن رنتي كينيا مقالة نيروبي سياد أكتشفها رنتي وح سوي مع عالم كأردن وح شو قدر ما سفارتها دون أردن مركا لأيجي يسفارتها يجو هيا أما هيا برنامج كسوماليلاند iyo Soomaaliya faylalkooda dhanka kalena de Kenya waa wadan runtii taariikh far badan oo wadaagno dhaqan haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto xiriir soo jireynta haday noqoto history isticmaalka haday noqoto runtii ah jaaliyad far badan oo reer Kenya ah ayaa ku dhaqan dalka Somaliland dhanka kalena jaaliyad aad taariikh far badan leh ayaa ku dhaqan dalka Kenya oo muddo soo jireynay soo joogtay marka waxaad oran kartaa runtii waxay tusaysaa ama tusaale u tahay ahmiyadda iyo xiisaha ay dawladda reer Somaliland uu hogaaminayo madaxweynaheeda Muuse Biixi Cabdi uu siinayo inuu dardargeliyo siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya oo runtii wad oran karto wuxuu xarun u yahay xiriirka ka dhaxeeya caalamka iyo Afrika diblomaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa bogaadiyay horumarka ay Somaliland samaysay 28 sano la soo dhaafay waxaanay sheegeen inay taageerayaan nabadda iyo horumarka Somaliland